أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أخيارتا هودا naga daawanaysa halkan waxaad kala socotaan barnaamij la yiraahdo hab nololeed waa 5TV xaruntiisa Nairobi. waxaad la socodsiin doona anigoo ismahaan Maxamed Xaaji Cali Xaydar ah. insha Allah waxaan falanqayn doonaa hab nololeed macnaheedu maxay tahay, habka nolosha aad u nooshahay hadii ay hagaagto maxaa ku hagaagaya hab nololeedkaaga, haduu wax ka khaldamana maxaa ka khaldamaya. hab nololeed markaan leenahay maxaan ku macnaynaynaa hab nololeed. hab nololeed kelmadda hab nololeedka markaad maqasho maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya, su'aal noocee ayaad isweydiinaysaa. daawadaha ay daawanaya ama gabadh ama wiil saqiir iyo kabiir qof ku yahayba hab nololeedka aad nooshahay barnaamijkan ka hadli doono qaybteeba adiga ka qusaysa. hab nololeed dabcan waa barnaamij aad u baaxad weyn, kolba meel baan diiradda saari doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo. hadda maanta waxaan macnaynayaa hab nololeed markii la yiraahdo qofka bani aadanka Ilaahay abuurtay habka uu u nool yahay. qof kasto Ilaahay abuurtay oo adduunkan keenay hab uu u nool yahay, hab ha u noolaadee balse hababka la rabo qofka inuu u noolaado hab noocee ayaa laga rabaa. hadii tusaale ahaan aan fiirino hab nololeedkan ka hadlayno muxuu noqon doonaa, sida wuxuu noqon doonaa cibaadada. qofka cibaadadiisa hadii hagaagto maxaa u hagaagaya, hadii cibaadadiisa halowdo maxaa ka halaabaya. caafimaadka qofka caafimaadkiisa haduu taam u yahay alxamdulillah rabbil caalamiin maxaa u hagaagaya. nolosha dhan markii la fiiriyo cibaadada laga soo tago qofku wuxuu u baahan yahay caafimaad uu ku dhaqdhaqaaqo oo wax ku qabsado. caafimaadkiisa marka hadii wax ka khaldan yahay hab nololeedkiisa maxaa ka khaldami kara. caafimaadkiisa haduu khaldan yahay sidee buu u sixi karaa. waxaa kale oo hab nololeed tusaale u ah dhaqaalaha. qofka inuu dhaqaale samaysto, qofka haduu dhaqaale haysto dhaqaalahaas aakhiriya adduunyada muxuu ku qabsan karaa. dhaqaaluhu soo sameeyay waa dhaqaale noocee, ma dhaqaale xalaal ah mise waa dhaqaale xaraan ah. dhaqaalaha haday xalaal yihiin saameyn intee leeg baad adduunyada iyo aakhira baad ku yeelan kartaa. hadii dhaqaalahaaga xaraan ay yihiin se maxaa dunidan aad kala kulmi kartaa, aakhirana warkeed biska daa. waxaa kale oo hab nololeed tusaale u ah waqtiga markaan leenahay waqtiga waxaa laga yaabaa qofka inuu iska sahlado, laakiin waqtigu waa shay qaali ah. Ilaahay waqtiga in badan ayuu ku dhaartay, wal casr ayuu ku dhaartay, wasubx ayuu ku dhaartay. marka waqtiga markii laga hadlaayo qofka waqtigiisa haduu u hagaago hab nololeedkiisa hadii qaabka uu waqtigiisa u nidaaminaya hadii u saxan tahay hab nololeedkiisa qaabkee bay u saxmaysaa. hadii waqtigiisu yahay qof maala yacni ku dhuminayana se hab nololeedkiisa maxaa ka khaldami karaa. waxaa kale oo ku qaadan dhigaynaa oo tusaale oo hab nololeedka bi'ada aad ku nooshahay hab nololeedkaaga maxaa saameyn ay ku yeelan kartaa. hadday bi'adaas wanaagsan tahay saameyn fiican, hadday bi'adaas xun tahayna saameyn xun. marka bi'ada iyadana waa tusaale kamid ah hab nololeedka. waxaa kale oo hab nololeedka kamid ah dhaqanka. dhaqan waxaa jira wanaagsan oo diinta waafaqsan iyo dhaqano xun oo diintan waafaqsanayn oo dadka aad iskaga dhex jiraan balse cibaadadooda xitaa khatar ay gelin karto dhaqanada noocaas ah. marka hab nololeed markaan ka hadlayno dhaqanka ayaa soo galaya. waxaa kaloo soo galay hab nololeed markaan ka hadlayno ganacsiga qof kasta wuxuu jecel yahay inuu ganacsado, inuu dhaqaale sameeyo, inuu horumar gaadho. qof adduunkan laga yaqaano oo ganacsiga caan ku ah inuu noqdo. ganacsigaad ganacsanaysid maad iska ganacsanaysaa mase waa ganacsi ku salaysan hadaf. hab nololeed ayuu soo hoosgalayaa. waxaa kaloo hab nololeed aan uga hadli doonaa haduu Ilaahay idmo fari kama qodna xuquuqda ay leeyihiin ama ay isku leeyihiin lamaanaha markaan leenahay waa labada isa soo doortay Ilaahay calaf iskugu daray. xuquuq noocee ay isku yeelan karaan, xuquuqda isku leeyihiin hadday saxaan maxaa u hagaagaya, hadii ay saxmi weyso xuquuqdaasi maxaa dhibaato ka iman kara. hab nololeed waxaa kaloo uga hadli doonaa wali hab nololeed baan idin macnaynayaaye habka maxaan ku dhahaayay qofka bani aadanka markuu meel ku nool yahay ama uu shaqeynayo ama waalid ha noolaado ama meel ha joogo xuquuq ayuu leeyahay. meesha aad joogto qofka la joogto xuquuqda aad ku leedahay iyo xuquuqda isagu kugu leeyahay. hadaad waalid tahay xuquuqda aad ilmahaaga ku leedahay iyo ilmahaaga xuquuqda ay kugu leeyihiin. hadii aad zawj tahay xuquuqda xaaskaaga kugu leedahay iyo xuquuqda adigana maxaan ku dhahay xaaskaaga aad ku leedahay. laba kasto isla joogaba xuquuq bay isku leeyihiin, bal iska dhaaf xawayaanka gurigaaga ku nool ayaa xuquuq kugu leh, deriskaaga ayaa xuquuq kugu leh.
marka xuquuqda lagugu leeyahay ama adiga aad qofka kale ku yeelan karto xuquuq noocee ay noqon kartaa. hab nololeed waxaa kaloon uga hadli doonaa habka siyaasadda maanta dunida ka taagan. markaan dhinac ka fiirino annaga Soomaali baan ka nahay, Soomaali haddaan nahay siyaasadeena maxaa ka khaldan, maxaa ka saxan, maxaa loo baahan yahay. hab nololeed waxaa kaloon uga hadli doonaa culimada iyo caamada. culimo ayaan leenahay, caamana waan leenahay. markaan culimo leeyahay waxaa waaye wax kasta oo khaldama marjicaga waxaa waaye kitaabka quraanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka quraanka tafsiirkiisa yaa ku macneynaya, fiqiga yaad wax ka weydiinaysaa, yaa saxan yaa khaldan. culimada iyo caamada maanta joogta wareerku xagee buu ka haystaa ayaan hab nololeed ku falaqeyn doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. hab nololeed waxaa kaloon ku falaqeyn doonaa habka caruurta wax loo baro, macallimiinta iyo waalidiinta isku xidhnaanshahooda iyo xuquuqda ka dhaxaysa. hadday hagaagto waxbarashadaas iyo xuquuqdaas maxaa hagaagaya, hadday halowdase maxaa inaga halaabaya. hab nololeed wuxuu hagaajin doonaa sideedaba waa dalladaas oo wax badan ay hoos galayaan. waxaasoo dhan markaa qaybta saxda ah iyo qaybta khaladka ah. ma qaybta saxda ayaad kaga jirtaa mase qaybta khaladka ayaad kaga jirtaa, adaa isweydiin doona. wixii kaa saxana adiga sii hormarsan doona, wixii kaa khaldanna waad saxan doontaa. hab nololeed waxaa kale oon ku fiirin doonaa casriga la joogo iyo la jaanqaadka social mediaga ama aaladda wax lagu faafiyo. marka haddii aad guriga joogtood hooyo tahay, haddaad gabar tahay, haddaad aabba tahay, wax kastood ku jirtid maanta waxaad isticmaalaysaa aaladda waxyaalaha badan lagu faafiyo oo laga faa'iideysto ama lagu khasaaro. marka aaladan casriga maanta la isticmaalayo iyo casrigan la joogo qaabkeebaad hab nololeedkaaga uga faa'iideysan kartaa. waxaa kaloon ku qaadan dhigi doonaa hab nololeed habka ay u isticmaalaan aaladda warfaafinta wariyaasha iyo dadka social mediaga isticmaala dhammaanba, ama YouTube isticmaal ama Snapchat ama Instagram ama Twitter ama Facebook waxaa doon isticmaal. laakiin hab nololeedkaaga qaabkeebaad uga faa'iideysan kartaa, dadkana ugu faa'iideyn kartaa, adigana waqtigaaga aad u ilaashan kartaa. hab nololeed fari kama qodna. intaas waxaan u soo qaatay waa tusaale ahaan markaan leeyahay wax kasta oo laga hadlo waxay u baahan yihiin in qofka loo tusaaleeyo si uu qofka u fahmo. markaad maqashid markaa kelmadda hab nololeed intaas iyo in ka badan ayaa laga yaabaa daawaduhu inuu isa su'aalo maskaxdiisa intaan aniga meeshan aan ku soo bandhigay iyo ka badan inay maskaxdiisa ay isweydiiso. waayahay hab nololeedkaad adiga aad ku jirtid muxuu noqon doonaa, kan aniga ka hadli doonana muxuu noqon doonaa, mid kala rabana waa midkee. qof kasta calaamad su'aal maskaxdaada isa sii weydii. kow hab nololeedka aan ka hadli rabo ayaa wuxuu yahay hab dhaqanka cibaadada. hab dhaqanka cibaadada markaan leeyahay adduunkan Ilaahay baa na abuurtay oo na keenay, koonkan aan ku noolnahay Ilaahay baa abuuray, bani aadankana ku abuuray oo dhex keenay. marka Ilaahay wuxuu leeyahay aayad quraan ayaa wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. jinka iyo insiga uma abuurin ilaa maaha inay caabudaan. marka Ilaahay hadaf buu lahaa markuuna abuuray oo dunidana keenay. hadafku Ilaahay noo keenayna waxaa waaye inaan cibaadaysanaa. cibaadadeena marka hadday khaldanto maxaa inaga khaldamaya, cibaadadeena hadday saxanto maxaa inoo saxmaya. kulli shay waxay hoos imanaysaa cibaadada. cibaadadan waa yahay dad badan way cibaadaystaan, ninba sibuu cibaadada u yaqaanaa. laakiin cibaadada saxda ee la rabo ee Ilaahay loogu dhawaanayo oo Ilaahay raanshiisa lagu raadinayo waa cibaado noocee ah. cibaadadaas hadday ku saxan tahay noloshaada dhan way saxan tahay. dabcan qaabkee bay u saxan tahay markay cibaadada saxan tahay Ilaahayna aad u dhowdahay. ta adduunyo iyo ta aakhiraba dib waad u shaqaysanaysaa oo waliba ta aakhira ayaad xoog saaraysaa. adduunyadaada aad uga faa'iideysanaysid aakhiradaada. marka Ilaahay hadafku inoo abuuray ayaa waxay tahay inaan Ilaahay caabudno. Ilaahay markaan ninba sibuu caabudaa, saad u caabudaysid iyo sida la iska rabo waa sidee. cibaadada markaan leenahay waa labo. midna waa mid adiga gudahaaga ah oo adiga bas iyo Ilaahay aad is ogtihiin, qofna uuna kula ogeyn. haddii sida sadaqa qarsoon aad baxsanayso qofna uun kugula ogeyn, haddii meel intaad iska fadhiisato ama adoos ka socdaad iska tasbiixsanayso adiga Ilaahay carabkaaga dhaqdhaqaaqiisa adiga iyo qulubtaada Ilaahay bas og. markaad tukanayso kale qofku kuu jeedaa, markaad quraan akhrinayso qofku kuu jeedaa, markaad ziyaaratu qubuur aad aadaysid ama ziyaaratu mariid dadka xanuunsan aad soo booqanaysid ama qaraabadaada xiriirinaysid. si kastaba waa cibaadooyin loo jeedo oo Ilaahay aad ugu dhawaanayso aadan qarin karin. laakiin cibaadooyin badan oo waxaa jira gudaha ah
oo aad qarsan karto oo ilaahay noogu dhawaanayso cibaadooyinkaas marka waxay u baahan yihiin ikhlaas ay u baahan yihiin cibaadadaas haddayna ikhlaas lahayn waxay ka noqonaysaa istustuskaana maalintii yawmal qiyaamo ilaah wuxuu dhahayaa dee inaad istustustid baad cibaadadaas u samaysay animaadan ii samaynin marka agteeda waxba kuma lihid cibaadada marka laga hadlayo xadiis ayaa soo arooray rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhahayo اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي أعبد سدي إساق أكو جيدا أديق هدادا إلهي أجيد إلهي إساق أي أكو جيدا وحاواي يعني وكلمة آد وين قفكي مسكحديسة كلمة داس كوع العليا وحبدا أي أهاقاقايا صابتو فيري وحبات سمين ربتا وحاليها قفكاس با إيجيدا وحبا كاخل دمايا وحاليها قفكاس با أركايا أنصحو markii wax wanaagsan aad sameeysid qof markuu ku jeedo si hagarbax ayaad u sameeyay qofkii shaqadaas iska lahaa ama meeshaas kugu aaminay markii laga maqan yahay waxa laga yaabaa inay ka yara dayacanto laakiin maskaxdaada markastaba haday ku dhacayso ku soo dhacayso ay ku soo noqonayso fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ilaaha duna ilaaha hadan aniga u jeedin ilaaha isaga ii jeeda isaga ayaa abuurtay isaga ayaa koonkani keenay gudahayga waxa ku jira ma ogi ilaahay baa og marka waa inaan u qabtaa hawshan sidii ilaahay isagoo yani ilaahay uu ii jeeda marka waxa ziyaado noqonaya ama badanaya khushuucaaga iyo cabsida ilaahay ka cabsanayso waxa qalbigaaga ku weynaanaya weynaanta ilaahay markastaba marka waxa ka tanaazulaysa khaladaadka si sabiqa kugu soo gali karo khalad weyn iskaba dhaafurkiis laakiin xitaa khaladaadka yaryar way ku saxmayaan markastaba qalbigaaga ilaahay baa ii jeeda waxaan hadaan sameeyo ilaahay baa ii jeeda ilaahay dartii aan u saxo qofkii isagoo wixii aan ku ogeyn ilaahay baa ii jeeda amaanadii ilaahay baa ii jeeda inta dhaxdaad ilaaliso adiga naftaada amaanay kugu tahay aad naftaadaas ilaaliso dhinac kasta baad iska dhoorto ilaahay marka uu ku naxariisanaya adigana qof waxaad noqonaysaa manzilka ilaahay agtiisa manzil weyn ku leh oo ilaahay adduunyo aakhira buu cizeeyay ayaad noqonaysaa cibaado markaan leenahay marka cibaadada waxay u baahan tahay sideedaba waxay u baahan tahay ikhlaas cibaadada haddeen ikhlaas lahayn aad bay u dhib badan tahay marka u dhawaanshaha ilaahay ikhlaas markaan leenahay yani waxaanaad sameynaysid iyo waxaanaad qabanaysid inuu ilaahay qalbiga ku weynaado oo ilaahay dartii waxaanaad u samayso oo markastaba aad naftaada weydiiso wixii aan sameeyay ilaahay raali hadaadan iga raali iga noqo oo mar in badan ilaahay aad dambi dhaaf aad weydiisato tasbiixsato ilaahay marka aad iyo aad ugu dhawaato marka cibaadadaada haday saxanto subhanallah wax kasta ayaa inoo saxmaaya nolosheena dhan ayaa hagaagaysa adduunka maanta waxa ka jira dhibaatooyin badan iyo xanuuno badan iyo qofkiiba inuu niyadiisa iyo naftiisa uu ku qanacsanayn maanta dhan qofku uu calacalaya waxyaalo badan buu sheeganaya kulli waan guda gali doonaa waxaas oo dhan marka qofka haday cibaadadiisa haday u toosan tahay wax kasta ayaa u toosan albaab badan oo irsaaqad fara badan oo qofkuuna filan karin ayuu ilaahay ku irsaaqaya hadii marka xitaa aad u cibaadeysanaysid oo ilaahay u dhow laga yaabaa hadana sidii aad rabtay inaadan helin oo markaad isweydiiso ilaahay baan u dhowahay wax kasta ilaahay dartii baan u sameeynaya waxyaalahan oo dhibaato igu dhacaya maxay tahay inaad isdhaahdo isweydiiso ilaahay aayad quraan wuxuu ku leeyahay wastaciinu bisabri wasalaat يعني dadka mutaqiinta ah muuminiinta oo ilaahay jecel yahay oo cibaadadoodu ay saxan tahay ayaa hadana ilaahay wuxuu ku sii samarsiinaya waxaad ka dhigataan maxaan ku dhahaa garab wastaciinu kaalmo waxaad ka dhigtaan bisalaati wa maxaan ku dhahaa bisabr wa salaad samirka iyo salaada fiiri salaada waxay ka reebaysaa wax kasta oo xumaatay ka reebaysaa waxay ka reebaysaa wax kasta oo fuxshi ah waxay ka reebaysaa wax kasta oo qofka bini aadanka يعني oo ilaahay u dhow qalbigiisa uu diidayo dhan bay salaada ka dhowraysaa shanta waqti markaad weysisatid dunuubta yareereed gasho dhan shanta waqti weysadeeda ayaa ka dhaqaysa marka qofka muuminka oo ilaahay u dhow markasta waa qof saabir ah wax kasta haduu ku dhaco wuxuu leeyahay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baan weydiistay dambi dhaaf ilaahay oo intan igu ekee ma calaayo kan baa igu dhacay ma dhahay markasta wuxuu xasuusanayaa qofkaas nimcadu ilaahay siiyay buu xasuusanayaa dib baa kugu dhacay hal dib baa kugu dhacay waxaad haysataa kaba soo qaad 10 shay baad haysataa hal dib baa kugu dhacay meeqa shay baad haysataa marka 9 shay baad haysataa bani aadanka hadda jooga marka waxa inagu badan halka dib inagu dhaca markasta inaan sheegno oo calaalna saamba igu dhacay laakiin nimcadii ilaahay na siiyay inaan sheegin oo ilaahay aan ku xamdiin taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa qof saabir manihin qofka saabirka ma sha Allah haduu dib ku dhaco
markastaba ilaahay buu u noqonayaa, ilaahay buu dambi dhaaf weydiisanaya, ilaahay oo dhibkan iga kor qaad. hadduu nimco dhex galana alxamdulilah rabbil caalamiin, ilaahay buu ku shukrinaya. wala in shakartum la aziidanakum buu xasuusanaya, in badan buu ilaahay ku shukrinaya. markastaba qofka mu'minka oo ilaahay u dhow waxaa qalbigiisa ku jiro oo ku weyn nimcada fara badan oo ilaahay siiya. marka wax yaroo ku dhaca inuu sheegto lagama yaabo. markasta wuxuu ku dadaalaya naftiisa inuu tababaro oo aad iyo aad naftiisa oo markastaba uu ku yacni loolan uu ku geliyo samirka fara badan. cibaadada marka hadday saxan tahay wax badan ayaa inoo saxmaya. waayahay cibaadada marka dadka cibaadeysanaya dadka waa kala nooc ninba waa si. أنا waxaan ka soo dhigay qoraalka intii researchka sameeyay iyo qalbigayga wixii Ilaahay garansiiyay dadka sideedaba inay yihiin afar nooc. intii aan wax baranay, intii aan wax baadhayay iyo intii bani aadan aan arkay qof wax afarta nooc ee dadka cibaadeysta ama dadka loogu talagalay inay cibaadaystaan. qof waa qof diinta maasha Allah ku dadaalaya markastaba cibaadada inuu aad u saxo, aad uga taxadaraya, salaada waqtigeeda ilaalinaya, maalintii quraan akhrisanaya, adkaartiisa aan ka tagaynin, ku xisaabtamaya maanta maxaa khayrood samaysay, maanta maxaa khaladood gashay. anfusu nafsakum qabla an tuhasabu, markastaba naftiisa uu xisaabini khaladku galay wuxuu ka toobad keeni. wuxuu ku dadaalaya marka qofkaas markastaba inuu ahaado qof dhowrsan, mu'min toosan oo Ilaahay jidkiisa ku socda ayuu ku dadaalaya, uu cibaadeysanaya, wixii ka khaldan buu saxaya, cilmi kororsi buu sameynaya. marka qofkaas waa qof mu'mina uu daalan dhacaya, mar shaydaanka ayaa ridanaya, mar isagii ayaa la ridaya. markastaba waa qof soo kabanaya, istighfaar sameynaya, Ilaahay u dhawaanaya, loolanka isaga iyo naftiisa iyo shaydaanka u dhaxeeya markastaba inuu gacan adag intuu iskaga qabto inuu dhinac inuu u rido kadibna isagii uu ka gudbo. Ilaahay markaas waji fiican uu kula kulmo uu rajeynaya. qofka marka cibaadada iyo maxaan ku dhahay diinta barashadeeda markastaba ku dadaalaya waa qof yacni u diyaarsan anytime waqti kasta, saacad kasta, ilbiriqsi kasta ay naftu ka bixi kartaa. Ilaahay maxaad ula hortagaysaa? markastaba naftiisa wuxuu weydiinaya qabriga yar uu gali doono iyo 2 mitir ee marada cad lagu kanfi doono. markaad qabriga gashid maxaad kala kulmi doontaa qabrigaas madow. markasta qofkaas wuxuu ku dadaalayaa inuu khayr hormarsado, inuu ajri badan hormarsado, qabrigiisa inuu nuuriyo, qabrigiisa inuu dhiso, qabrigiisa inuu qurxiyo. markasta wuxuu ku dadaalayaa inuu noqonin shakhsi dunuwi ah, qof adduunkan ku mashquulsan, shilin ku helo naftiisa iyo maalayacni inuu ku mashquuliyo, aan marnaba naftiisa ayna ogolaanaynin. inta markaas naftiisa uga baahan tahay oo waliba aad uu ilaaliyo markuu inta kale aakhiradiisa u hormarsanaya. ama qof qaraabo siinay ama masjid buu ku bixinaya. hadduu shilin haysan xitaa tasbiixdiisa iyo quraankiisa iyo soonkiisa badinaya. waa qof markastaba isu diyaarinaya anytime baad dhimanaysaa, Ilaahay wax fiican ula hortag. naxariista Ilaahay baa janno lagu galaa, laakiin waa qof markastaba dadaalaya oo dadaal iyo juhdi bixinaya. qofka noocaas marka waa qof run sheeg badan. inta badan qowlkiisa qiila waqaala kama dhacdhaco, iskama hadlo, been ma sheego, qowlkiisa uu dhowrsan yahay. wuxuu markastaba ku dadaalaya xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ahaa qul khayran aw liyasmud, ama khayr ku hadal ama iska aamusma ama iskaba aamus. dadka intay meelahaas iska fadhiyaan, iska qosqoslayaan, maalayacni ay ka sheekeynayaan, isaga wuxuu nafsadiisa weydiinayaa maxaa wanaagun maanta sameeyay, maxaa kaloon sameeyaa. wuxuu ku dadaalayaa adduunyadan uu joogo inuu horumar sharaf leh inuu ka gaadho, aakhirana horumar sharaf leh Ilaahay inuu ula hortago. marka qofkaas qof hadalkiisa been ay soo gali karta maaha. haddii uu been sheegayna waa qof 3 mar been sheegaya, beentii la baneeyay. hadduu dad heshiisiinayo ama nin iyo naag isku dhacay ama dad isku dhacay oo islaaxa bayna naas hadduu sameynayo, yacni intii mare la ogol yahay inuu markaas. laakiin hadal been iska sheeg wax ku soo dhacso, ama hadal been qofkan dood kula gal, ama hadal been maanta dhan qofka u macaane may. qofka kuwa noocaas ah marnaba afkiisa been kama soo baxdo. wuxuu ku dadaalaya marka wuxuu yahay qofka noocaas waa qof xaq u dirir ah. xaq ayuu markastaba u diriraa, baadilku ka soo horjeedaa, baadilka markastaba uu ka gubanaya. waa qof agtiisa wax xaq darra iyo dulmi aan lagu sameyn karin. xaq darrada iyo dulmiga qof kasta waa mar maya dhahaya oo diidaya wixii wanaagsan iyo wixii rasuulkeena iyo Ilaahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam noo sheegay iyo wixii Ilaahay noo sheegay oo ku toosan. xaq darro oo dhan iyo dulmi oo dhanna maya dhahaya. haddii markaas uu u dhimanayna run ku dhimanaya waa qofka noocaas.
qofka noocaas oo cibaadadiisa ay soo toosantahay cibaadadiisa ma sha Allah mu'minka ah sifooyinkiisa waxaa kamid ah akhlaaqda wanaagsan aad u akhlaaq wanaagsan waaye haduu muusoonayo xitaa dadka ilaa halkaas ilkooda intay tagayaan dhaq dhahayo qosolkiisa banaankaas dhan laga maqlay maaha waa qof muusoonayo qof ma sha Allah akhlaaqdiisa dhan haduu talaabsanayo haduu wax cunayo haduu wax cabaayo haduu kula hadlayo haduu wax ka gadanayo haduu qoyskiisa la joogo aabayaha sidoo habka caruurtiisa ula dhaqmayo habka xaaskiisa ula dhaqmayo habka waalidkiisa ula dhaqmayo qofkaas waa qof birrul waalidiinka aad ugu dadaalaya markasta ku dadaalaya nolosha waalidiintiisa inuu aad uga warhaayo haduu wax ku tari karo inuu ku taro adin iyo waxay noqotaba heliyahooba waalidiintiisa inuu ka warhaayo inuu u duceeyo haday dhinteen wax u sadaqeeyo waa qof birrul waalidiinka aad ugu dadaalaya qofka noocaas ah qofka mu'minka ma sha Allah ilaahay u dhow cibaadadiisa ay aad ugu saxantahay ma sha Allah baan leenahay tabarakallah waa qof aad u dhowrsoon hadii meel bulsho uu joogo inuu dadka gacanta la galo waad aragteen hadda akhlaaqda jirta especially meelaha gabdhaha iyo wiilasha ku badan yihiin bulshada inta badan meelo qaar kood special intii la dhaho la isku imaado gabadhii wiilkay gacanta la gelaysaa wiilkii gabadhu gacanta la gelaya habaa la isa siinaya ajnabi baa la kaleeyahay waxyaalo maskaxdaada ay diidayso indhahaagana inay arkaan ay diidayaan maskaxdaadana yani aqli gal waxaas maxaa waay inta dhahdo hoos aad ka fiirsanayso kolba dhinacaad uga jeedsanayso ayaa dhacaya qofka toosan marka akhlaaqda toosan haysta rasuulkeena kaleey salaatu salaam aayad quraana ku soo aroortay wayna kala cala khulqan cadiim adiga waxa ku sugnaatay akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsan marka wax la iska sheegan kara maaha ama la iska keenkeeni kara maaha akhlaaqda wanaagsan ilaahayna wuu bixiyaa ilaahay nagu irsaaqo barbaarinta bi'adaad ku soo barbaartay iyo waalidkaaga ku soo barbaariyay iyo maxaan ku dhahay noloshaadii backgroundkaagii hoose caruurnimadaadii qayb weyn bay ka qaadanaysaa si kasto oo marka wanaag lagu soo koriyay oo ma sha Allah ama reer diin laad ka soo jeedo ama si akhlaaq lagu soo koriyay ama diin aad soo baratay kama suurtoobayso ama kama suurtagelayso meel marka timaado inaad dadka afka la gasho gacanta la gasho xabadka la gasho maanta dhan xitaa wiil haduu ku soo ag fadhiistay xitaa wad yara xishoon wad isira ururin wiilka saas oo kale haday gabar soo ag fadhiisato wuu isira ururin waxa ku jira xayaa xishood ba ku jira rasuulkeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت hadaadan xishoonin waxaad rabtid samee dadka hadda jooga badankooda xishoodkii waxaad moodaa markay guriga ka soo baxayaan inay ka tabaanka intay sudeen inay ka soo tageen markay imaadaan marka meelaha dadka ay isla joogaan waxaad moodaa in la yiri waa ilbaxnimo isku dhegdhega iyo maxaan ku dhahay sheekada iyo qosolka iyo dhawaaqa iyo waxaad arkaysaa gabadh laba wiil dhex fadhida in yar xitaa dareenkii baa tagay baad isdhahaysaa maxaa waay sidan ma walaalkeed ba ma aabaheed ba ma ninkeed ba muxuu yahay raggan saan la isku dhex fadhiyo adiga dhan waxaad dhahaysaa maya waxaan wax suurtagal maaha marka waxaad adiga marka adeegsanaysaa xadiiskii aha waxaan waa dhabsatay soo adcaful iimaan yani inaad iska aamusto because hadaad wax sheegtidna waqtigan hadda la joogo oo lagu soo ururiyo xaq sheegidii waxayba noqotayba ha diinta adiga taqaana miya qof khatar iska dhigaysaa miya meeshas inayba ka timaadaba dunuub kale iyo maxaan ku dhahaayay aflagaada kale markasta waxa fiican hadaad wax saxaysid xitaa inaad fiirisid xaalad daruuriya xaalada markaas taagan xaalad aad wax ku saxi karta miya qofka hadaad si gooni u lahaadashood xushmayso dhaad waxaas kuma fiicna xitaa in lagu diirtaa macquul ah marka adcaful iimaan intaad isticmaashay inaad iska aamusto ayay u badan tahay wali waxaan ku jirnaa example-ka cibaadada afarta nooc afarta qof ama afarta bani aadan yani qaabka u kala cibaadaystaan qofka muslimka cibaadada saxda laga rabo qofka mu'minka ilaahay u dhow astaamihiisa ama maxaan ku dhahaayay waxyaalaha aadka ugu dhaqmo uu ku dadaalo ayaan yani sheegaynay qofka cibaadadiisa saxanta ma sha Allah waa qof xalaal miirato ah kelmadaas aad u dhageysta xalaal miirato markaan leeyahay subhanallah xalaal inaad miirato oo xalaal aad quudato waqtigan hadda la joogo aad bay u adag tahay qofkii waqtigan hadda joogo is dhowra oo is cilciliya wallahi ilaahay faraj buu u furayaa oo la shaka inuu ilaahay faraj u furaayo xalaal miirato markaan leeyahay waqtigan hadda la joogo qofka markii fursad uu helo meeshaas seen uga soo faa'iideystaa seen uga lacagaystaa seen meeshaas u soo dhacaa dadka ku fikiraya aad u badan tusaale ahaan waxa lagu dhimay meel ba mas'uul lagaaga dhigay waxa lagu dhahay meeshan maamul baad ka tahay hay intaas soo galaysa kan ogow waxa laga yaabaa waxyaalo extra inay soo galayaan
maamulihii qof meeshii mulkiilihuna ogeyn adiga marka aad dhahday intan baa laygula xisaabtamaya intan jeebka geli subxaanallah dadka marka xalaal miiratadan ahayn aad bay yacni khatar weyn bay ku jiraan xitaa ilmahooda waxay quudinayaan ilmahaas maxaa ka farcami doona qofkan aakhiradiisa uu gatay dabcan marka xalaal miirato markaan leeyahay qofka akhlaaqda wanaagsan ilaahay u dhow cibaadadiisa ilaalinaya oo mu'minka ah maanta hadduu helo wuu cunaya hadduuna helina biyo cad iska cabaya waan dheragsanay alxamdulilah rabbil caalamiin ayuu dhahaya kuma fikirayo adduunyadan dhaldhalaalaysa iyo lacagahan isdaba wareejinayo iyo adduunyadan maanta dhan san loo dabagedinayo maasha allah lacagahan adduunyadan subxaanallah isaga agtiisa waxba kama aha waxaa la weyn shilan xaaraan hadduu cuno waxa aakhire kasoo gaadhay ayaa la weyn marka wuxuu leeyahay maya xitaa qof xaaraan ku dhex jira haddii xitaa kasoo ag dhawaaday xitaa qofkaas uu iska goynayaa wuxuu leeyahay maya qofkan haddaan kasii ag dhawaado waxaa laga yaabaa xaaraanta inay anigana isoo gasho cibaadada dadka qofka labaad nooca cibaadada uu cibaadeysto ayaa noocan ah waa qof aqoon leh diinta aqoon buu u leeyahay laakiin waxba uma aabayeelayo yani waa qof diin leh qofkii hore waxaa waaye qof diin leh maasha allah diintiisina dhowray xuquuqdii lagu lahaa iyo maxaan ku dhahayay wuxuu ilaahay jeclaana ku dadaalay waaye qofkan labaad waa qof diinta yaqaana laakiin wuxuu u aabayeelayo iyo wuxuu kala jecel yahay midna ma jirto subxaanallah ilaah baan ka magan galnay wanaciyaadu billah ayaan leenahay adoo ilaahay diintii ku baray wax kastana garanaysid haddana intaad labada dhagood ka xiratid labada indhoodna ka xiratid inaad iska socotid saa rabtid aad u dhaqantid run ahaantii waa wax ilaah laga magan galo sababtoo ah naftan laysma siinin anytime haddaa dhimato dee wax dunuubta qaarkood oo naftaadaad ka gasha adii ilaah idinka dhexeeyaan ilaah waad u toobad keeni laakiin dadka xuquuqdooda yaa kaa cafina shaqsi inaad ugu tagto cafi dhahdidna dee wayba adag tahay maba kuu suurtagelayso marka dad badan waxaa jira waqtigan hadda la joogo diin leh dad wanaagsan ay soo dhaleen dhaqan wanaagsan lagu soo koriyay laakiin bii'adii ay ka tambadisay soomaalida waxay dhahday biyo kaa badan iyo dad kaa badan bay ku hanfiyaan biyo ay soo dhexgalayaan bii'adaasa ka tambadinaysaa dhaldhalaalkii adduunyada naftii shaydaankii hada wasalaam qofkaas waa ku daayay qofka marka diinta yaqaano laakiin waxba aan u aabayeelinin dabeecadiisa waxaa kamid ah inuu been sheego qowl runa maba yaqaanaba hadduu in yaroo run sheego beentiisaa badan hadalkuu macaaniinaya maanta dhan wuxuu jecel yahay in loo qoslo in loo camiro in sacabka loo tumo nacamlayaasha marka waxaa sameynaya iyaga laftarkooda dembiga qayb bay ku leeyihiin oo ujeedaan qofkan inuu beenaale yahay waayo loogu camiraya loogu sabcinaya ha adaa jirtid hore markii laga tagana ma arkaysa siduu been u sheegay iyaga laftarkoodii loo yani loo shactireynaya beenbeenta loo sheegaya markaas intay sacabka tumaan markay tagaan xan kale sii galayaan marka dadka noocaas naartii kugu sii fogeynayaan oo adigiibayba baxarku sii gelinayaan mooye waxba kuma tarayaan waa saaxiibka xun يعني qofkii hore maxaan dhahnay saaxiib xun xitaa uu ka fogaanaya laakiin qofkan saaxiibada xun ayaa ku soo badan oo ku hareereysan rasuulkeena wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam wuxuu saaxiibka yahay ayaa tahay saaxiibka haduu beenaaleeyahay beenaalaatay haduu saaxiibka dhoorsantay because saaxiibka wanaagsan markasta uu ku soo hananaya uu ku soo waaninaya ilaahay buu ku xasuusinaya wuxuu ku dhahayaa maya san hayeelin kan hayeelin marka qofka inta badan aan waxba u aabayeelin oo diin u yaqaan laakiin waxba aan dan ka lahayn dabeecadiisa waxaa kamid ah beenta asaas uga soo burqanaysa waa qof xaaraan iyo xalaal aan kala jeclayn haddii maanta xoolo xaaraan oo soo helo inuu ubadkiisa iyo reerkiisa iyo waalidkiisa inuu u keeno isagoo cuno isku qurxiyo uu ku faanaya aniga ma aha maadi gaadh asan wuxuu soo dhacsaday adiga meeshan iska fadhi diin baan ilaalinaya war waxaan ilaahay baa ku siiyay diin baan ilaalinaya diin ilaahay baa fursadan ku soo mariyay ma ka faa'iideysatid qofkan miskiinka oo xalaal quudatada oo is dhowraya ayuu rabaa inuu baxar sii galiyo oo u sii faanfaanaya maalintan ku arkay ilaa hada shaatigani macuustan xuntoon baa xidhan tahay aniga ma ii jeedaa suudkan maanta xidhay berri ma soo xidhay gawaadhi meeqa gawaadhiyaan maraya adiga wakaas weli hal baaskil xitaa maadan gadan yacni caayada afkiisa ka baxays qofka noocaas hadday gabar tahayna dee wakaas gurigayga sooma jeedid caruurtayda sooma jeedid soo aniga iima jeedid maxaa iga qasanaya kan yahay qofkii waaba la sii aflagaadeen dhowr sano ilaahay jeclaa maasha allah aflagaadi iyo waxaa loogu daray in la niyo jabiyo intii wanaagaas uu ku dhex jiro lagu dhiirigelin lahaa wallahi adiga qof iimaan la tahay maasha allah ii soo ducee anigana inaan xumaatadan ka dhex baxo intuu qofku dhihi lahaa isagiiaba la sii cunayaa la iskugu goobani marka qofkaas xaaraan iyo xalaal ma kala jecla waayahay qofkaas waa qof caasil waalideyn ah
waalidkiisa hadduu xanuunsan yahay hadduu murugsan yahay haddii kale ma kala jecla lacag baan u keenaa waan dhaqaaleynaa haddana calaacal ay ku jiraan wallahi waalidiintan wayba na wareeriyeen waalidiintan hadda jooga wax ma fahmayaanba wallahi buuqba yacni waalidkii xitaa wuu aflagaadeynaya qofka noocaas markaasaa waalidiintooda xitaa waxaa laga yaabaa waalid cabsanayo waxbaan u sheegan karin inay yihiin oo dee maxaan ku dhahayay iyagiiba allaahuma sallim sallim ay ku jiraan marka qofka noocaasa waa qof caasul waalideyn ah waa qof markastaba dulmi ku jiro qof inuu iska dulmiyo inuu iskaga dacdacsado inuu iskaga qosqoslo inuu iska yacni wuxuu rabo inuu iskaga sameeyo because xaraan iyo xalaal maba kala jecla diinta haddaad aayad usoo daliishatid isagaaba kaa hor dhammeynaya aayadda haddaad xadiis usoo daliishatid ruuxan waa naqaana mar horaan daadine adiga ku dhaqan ayuu ku leeyahay noo jaxanjax qofka noocaas aayad iyo xadiis iyo wuxuu ka jaxanjaxayo marka man yuridullah khayran wafiqhu fi diin qofkii ilaahay khayr kala jeclaada ilaahay diintu waafajiya waafajinta diinta waxa waaye ilaahay inuu iimaan ku siiyo ilaahay dee inuu maxaan ku dhahay jidka hadeysane hanuunsan inuu ilaahay kugu hadeeyo ilaahay baa bixiya ilaahay baan weydiisanaynaa dadka qaarkood laakiin khadka ka dhacay say usoo kabsadaan oo khadkaas xun uga soo baxaan oo red line-ka intay soo gooyaan yellow kadibna green ay saas usii socdaan way adag tahay laakiin hanuunka ilaahay baa haya ilaahay baan ka magan galaynaa dadka saddexaad oo iyagana cibaado inay cibaadeysanayaan oo malaynayaan laakiin cibaadana ku dhex jira waxaa waaye waa qof diinta jaahilka ah sidiisaba diinta jaahil buu ka yahay waa cilmi dhagood buu haystaa inuu bartana ma rabo inuu jaahil yahay oo diin uuna lahayn diintii rasuulkeena lagu soo dejiyay calayhi salaatu wasalaam 23 sano waxyiga kusoo degayay qofkan hanuunkiisa iyo jidkiisa xalaashii iyo xaraantii maxaan ku dhahayay wanaagii iyo xumaatadii kala baraysay oo markaas jidka saxan uu ku kala qaadan lahaa inay diintan tahay uu og yahay inuu bartana ma rabo waana jaahil iska soo taagan yahay diinta bara haddaa dhahdid wuxuu kugu gacan sayraa maxaan ka baranaya oo ku leeyahay marka dadka noocaas waa dad midda kale waqti haysta lacag haysta laakiin maxay bartaan maadiga haddii aad dhahdid kaale xisaab baro kaale luqad baro kaale kan baro kaale farsamo gacan baro lambar 1 wuu ka horeeyaa laakiin kaale aayad quraan ama hal suurad soo baro ama hal xadiis soo baro ama kaale sida maxaan ku dhahayay nijaasada la iskaga dhaqo loo daahirsado salaad axkaanteeda soo bar hadaa dhahdid haday gabartay haduu wiil yahay markay weysiisanaan gabdhaha qaarkood si fiican ay dhageysta si fiican daawada in badan waan isgaranaynaa markay weysiisanaan xitaa hadaba kaas laba dhar baan isku kor xiranahay soo maaha san bay dhahayaan cabaayada ilaa halkaas bay gaarsiinayaan weysada xukunkeeda xitaa inay halkaas ilaa halkaas shaqalkeen la kor dhaafiyo xitaa ma yaqaanaan hadaa dhahdo halkan u jiid ilaa halkan soo gaarsiisan oo weysiiso masaas baa hayaa lagu dhahay laakiin hore laga sii soconaa qofkan uu tagaya gabadh oo kale waa masaajida la jooga intaas way soo weysiisatay weysadeeda intaas ay ku dhan tahay baag bay xambaarsan tahay jaamacad bay ka soo baxday maadooyin bay soo qaadatay waxa laga yaabaa in lugaheeda qaawan yihiin bila sigisaan dharkiina haday dheerayso xitaa hoos uma gaadhay lugaheedu way qaawantahay Allahu akbar abaayo lugaha way qaawan yihiin salaada kuma ansaxmayso saas miyaa hayo waa laga sii soconaya waxaan ka hadlayaa waxaan arkay oo ku soo dhex jiray oon aadna aan uga warhayo marka dadka noocaas inay diinta bartaan aan rabin diinta xageeda inay u dhaqaaqaan aan rabin khaladaadka xagga diinta ka haysta inay saxaan aan rabin laakiin kii maadigii ahaa way raran yihiin ma sha Allah tabaarakallah marka hadii PhD xitaa maanta aad haysatid oo diintaada suuban oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyay waxba aadan ka aqoonin PhD gaas la yanfac aakhiro wuxuu ku taray malaha adduunyo wuxuu ku taray malaha maanta hadaadan aqoonin xaqa waalidkaaga xaqa zawjkaaga xaqa ilmahaaga xaqa dariskaaga ahkaanti salaadan ahkaanti nijaasada hadii maanta xaraan iyo xalaash wax kastaba hadii iska noqoto iska soco de waxaad noqonaysaa hal bacaad lagu lisay qof lisay laakiin wuxuu lisayna bacaadun buu ku lisay bacaadkana de wuxuu sii daaya wax ma qabto marka dadka diinta aan aqoonin hadana inay bartaan aan rabin inay isa saxaan aan rabin balse hadana waan cibaadeysanayna dhahaya oo tukanaya dadka noocaasna waa nooc kamid ah waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka waxa waaye qofku waa muslimnimo ku dhashay muslimnimo ku soo barbaaray magacaaga waa ay marka dhahdo wuxuu ku leeyahay hebel baan ahay laakiin diin wuxuu ka og yahay ma jirto kii hore moogto waxbuu baranayay diinna inuu dhaqaaqo ma raba laakiin kan wuxuu baranayna ma laha hadduu wax bartayna demaadi buu bartay
inay hebel baan ahay uu ku faanayaa reer culumaan ka soo jeedaa buu ku faanayaa hadduu rabo wuxuu ku faanayaa magaciisa saddexan buu ku faanayaa laakiin muslim baan ahay buu leeyahay uu ku dhaaranayaa ha sugin cidihii halkaasay joogaan oo sakha ka buuxda nooc kale hadday gabar tahayna iyadana waa nooc kale nooc mina dee jabaan waaye iyaga dhan marka diintiina way kula sheeganayaan oo muslim baan uu ku leeyahay laakiin inuu cibaadeysto qof diin leh inuu la xiriiro inuu ku dadaalo islaamnimadiisa say ku saxmi lahayd haddaad u sheegto dhahay warsaan sax maaha waxay ku roon yihiin dadka noocaas waxay ku dhahayaan iisoo duceynu ilaahay soo hanuunayo I know inaan khaldanahay laakiin de ilaahay baa islaam iga dhigay islaamnimaan ku dhasho ku barbaaray reerkanagana waa muslimiin balse inaan cibaadeysto inta tukado insha Allah markaan yara gaboobo ma aragtay in cibaadada bilaabi doona adiga noo sii cibaadeyso iisoo ducee oo ku dhahay qofkaas uu ka sii tagaya dadka noocaasna aad bay u badan yihiin waqti xaadirkan la joogo dadka noocaasna aad bay u badan yihiin waalidiintuna way la tacaalayaan oo way la dhiban yihiin runtii marka hab nololeed markii la dhaho waxaan ka soo qaatay hal qodob oo ah cibaadada ayaa si kala baxbaxday oo intaasan ka dhigay dabcan barnaamijkeenina fari kama qodna haddana time badan ilaa 40 daqiiqan sii maraynaa waxaan ilaahay ka rajeynayaa waxaan sheegay iyo waxaan sheegi doonaba inuu ilaahay nagu anfaco nolosheena waxa ka khaldan inaan sixi doono oo wada sixi doono haddii ilaahay raali ka noqdo barnaamijkan maalin kasta oo khamiis waad igala socon doontaan intuu ilaahay karsiyo ayaan soo bandhigi doonaa wixii aan gafay nafteeda iyo shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan asiibayna min allah ilaahay ma hadeed iskala alxamdulillah rabbil caalamiin waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh